madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa joogay Ukraine uuna wadahadalo kula yeelanaya halkaasi Volodymyr Zelensky waa dadaalkii ugu dambeeyay uu ku dejinayo xiisadda Ruushka iyo Ukraine. madaxweyne Macron ayaa sheegay in maalmaha soo socda uu noqon doono qaar muhiim ah oo wadahadalo badan la gali doono iyadoo uu sheegay si wadajir ah looga qayb gali doono wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa isna sheegay in wadaxaajood ay diyaar u yihiin laakiin aanay ogolaan doonin in qadka cas laga soo gudbo. Mr. Macron ayaa 5 saacadood oo wadahadalo ah la yeeshay madaxweyne Putin shalay waxa ay sheegeen labada hogaamiye inay jiraan qodobo ay isku raaceen dhanka kalena wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in 6 ka mid ah maraakiibtooda ciidamada dejiya inay ka soo gudbeen badda madow oo koonfurta Ukraine ah. waa kan Cabdiraxmaan Bidhaan oo warbixintan soo jeediya. laba madaxweyne oo ereyo diiran oo soo dhaweyn ah isweydaarsanaya laakiin sheekada baxsan halkan ma taalo waa shir madaxeed la kala fog yahay oo lagu qabanayo aqalka Kremlinka. Emmanuel aad baan ugu faraxsanahay inaan ku arko ayuu yiri Putin laakiin dowlad cadaynta marka la dhaafo hawl culus ayaa halkan taala. reer galbeedka ayaa ka warwarsan muruqa Ruushku ku soo bandhigay xadka Ukraine sida dowladtuskan ay Belarus la sameynayaan ee ay ciidamadooda ku soo bandhigeen iyadoo ciidamada Ruushkana la soo dhoobay xadka Ukraine. Ruushku dhankooda waxay ka walacsan yihiin gaashaanbuurta NATO waxaanay rabaan in la joojiyo in NATO ay bariga u soo fito. xaaladdu ma soo dabcaysa ayaa la isweydiinayaa maya weli ma soo dabcin laakiin Vladimir Putin ayaa sheegay inuu wada hadallada la wadi doono Macron. qaar ka mid ah hindisayaashiisa iyo fikradihiisa oo aanu darsayno ayaan filayaa inay noqon karaan meesha aanu marka dambe wax ka bilowno. maanta labadayadu waa aynu dareensannahay heerka ay xaaladdu taagan tahay oo ah mid culus iyada oo danta cid walba la eegayo si aanu u helno jidka nabadda iyo deganaanshaha ee qaaradda Yurub. inuu halkan yimaado madaxweynaha Faransiisku ayaaba Kremlinku waxay u arkaan inay tahay laftigeedu guul diblomaasiyadeed. laakiin waxa la isweydiinayaa maxaa dhacaya haddii diblomaasiyaddu fashilanto. Mareykanka ayaa u soo diray ciidamo Poland si ay u ilaaliyaan dal NATO ah haddii xaaladda Ukraine faraha ka baxdo. si loo muujiyo wadajirka bahwadaagta Atlantigana hogaamiyaha Jarmalka Chancellor Olaf Scholz ayaa ka degay Washington si uu wada hadal ula yeesho madaxweyne Biden. haddii ay Ruushka go'aansadaan inay ku duulaan Ukraine kulligayaba iyo NATOba waa diyaar. Moscow waxay sheegeen inay iyagu yihiin haddaba kuwa dhibanaha ah. Ruushkuna waxay soo arkaan inay noqdeen meel Mareykanku hareereeyay iyo NATO iyo Ukraine oo colaadsatay. waxaa haddaba reer galbeedka iyagana hurdada u diidaya waxa weeye maxay Ruushka yeeli doonaan haddii diblomaasiyaddu socon weydo.